kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta ku saabsan nabadoon caan ah isla markaana ka soo jeeda SSC Khaatumo oo aroonimadii hore saaka lagu dilay magaalada Ceerigaabo Jubbaland oo wada diyaar garowgii ugu dambeeyay oo markaasi ka dhan ah doorasho degdeg ah oo 25 bishan la soo afmeero intaanu xogahaasi guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horreysayna soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkaana like aad saarto si dad badan uu u gaaro allaha u naxariistay waxaa saaka aroornimadii hore lagu dhex toogtay bartamaha magaalada Ceerigaabo nabadoon Caaqil Saalax Maxamuud Cali Gurey oo caan ka ahaa magaalada Ceerigaabo nabadoonka ayaa caan ku ahaa ka shaqaynta nabadeynta isu keenista bulshada iyo sidoo kale dib u heshiisiintooda Allah u naxariistay nabadoonka ayaa waxaa toogtay dablay hubaysan oo ilaa haatan aan la aqoonsan haybtooda waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada bilayska oo isla markiiba howlgalay ay ku mashquulsan yihiin baadigoobka ciddii ka dambeysay dilka nabadoonka nabadoon Saalax Allah u naxariistay oo ka soo jeeday SSC Khaatumo ayaa wararku waxa ay sheegayaan in lagu dhex toogtay bartamaha magaalada waxaana nabadoonka dilkiisa aad looga dareemay guud ahaan magaalada Ceerigaabo iyadoo dadku ay ka muujiyeen cara xoog leh dilka markaasi loo geystay nabadoonka xaaladda magaalada oo haatan aan deganayn ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada booliiska ay markaasi ku baaqeen in dadku ay isdejiyaan isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan cid allaale ciddii ka dambeysay dilka nabadoon Maxamuud Cali Gurey oo caan ku ahaa isla markaana si weyn loogu yaqaanay ka shaqaynta dib u heshiisiinta bulshada magaalada Ceerigaabo oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku soo laalaabteen qulqulatooyin la xiriiro dilal ayaa waxaa tan ay daba socotaa dilal dhowr jeer oo hore ka dhacay kuwaas oo sababay mararka qaarkood in dadku ay banaanbax sameeyaan isla markaana ay ka caroodaan dilka ma cadda tallaabada degdega ah ee markaasi ay qaadi doonaan dadka deegaanka balse waxaa la rumaysan yahay in dilka nabadoonkan uu dhalin doono ama uu dhaliyayba cara xoog leh iyagoona ehelada nabadoonka ay markaasi ku baaqeen in si degdega gacanta loogu soo geliyo ciddii ka dambeysay dilka Allah u naxariistay nabadoon Saalax Maxamuud Cali Gurey nabadoonka oo saaka goor hore la toogtay ayaan ilaa hadda la aasin iyadoo oo markaasi la raadinayo ama baadigoob loogu jiro cid allaale ciddii ka dambeysay dilka marxuumka wixii warar ay ku soo kordho dilka nabadoon Cali Gurey halkan ayaad kala socon doontaan iyo si guud magaalada Ceerigaabo aynu aadno dhanka Jubbaland waxay isku diyaarinaysaa qabasho doorasho degdeg ah oo lagu soo afmeero 25 bishan November ee haatan aynu ku guda jirno wararkaynu ka helayno magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in haatan ay ku sugan yihiin xubno mucaarad ah oo markaasi sheegay in ay ka soo horjeedaan madaxweynaha Jubbaland qaabka uu wax u wado isla markaana ay dhaleeceyn xoog leh u jeediyeen wararka haatan aynu helayno waxay sheegayaan in xubnaha mucaaradka ah oo markaasi midaysan ay soo saareen warqad ay ku qoran yihiin sida ay shaaciyeen guddi doorasho oo ka madax bannaan guddigii ay Jubbaland soo saartay isla markaana ay iyagu qabsanayaan doorasho u gaar ah oo ka madax bannaan midda Jubbaland ay qabanqaabinayso ma cadda halka ay arrinta ku biyo shuban doonto balse waxay u muuqataa in ay hawshu isku bedeshay haatan fawdo isla markaana musharaxiinta mucaaradka ay rabaan inay qabtaan doorasho barbar socoto doorashada kale ee Jubbaland waxaana wararku ay sheegayaan in guddiga doorashada Jubbaland ay xilli horeba ay soo saareen markaasi jadwalka isla markaana shalayba ay la kulmeen odayaasha dhaqanka ee markaasi soo xulayo xildhibaanada isla markaana ay kala hadleen qaabka markaasi loo soo xulayo xildhibaanada iyo sidoo kale habraaca markaasi loo marayo dowladda federaalka waxay isku dayaysaa tallaabo kasta oo ay qaadi karto in ay u qaado sidii ay u joojin lahayd doorashada Jubbaland
inkastoo Jubbaland ay sheegtay inay xiriirka u jartay isla markaana wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda Soomaaliya ay hakisay ayaa waxay u muuqataa in Axmed Madoobe uu ka adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana haddii doorashadan uu 25 November isaga ku soo baxo mar kale ay markaasi na tusinaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qasbanaan doono in mar kale Axmed Madoobe uu heshiis la galo maadaama 5 sano cusub uu haysto Axmed Madoobe Xasan Sheekhna uu rabo in markaasi dib uu u soo laabto waxaana wararka aynu ka helayno magaalada Kismaayo ay sheegayaan in ammaanka magaalada aad loo adkeeyay isla markaana qabaqaabada doorashada si weyn looga dareemayo iyo ololaha ay ku jiraan musharaxiinta raadinayso xilka madaxweynaha iyo midda xildhibaanadaba iyadoo xubno mucaarada ay ku sii qulqulayaan magaalada Kismaayo ayaa wararku waxa ay sheegayaan in xubnaha mucaaradka ay dhankoodana markaasi ay raadinayaan sidii ay u qabsan lahaayeen doorasho barbar socoto midda Jubbaland ay qabanqaabinayso